inkastoo dhagaha Soomaalidu mar waliba ay maqlaan qof la dilay haddana dhanka kale ganacsiga Soomaalidu waa mid ku sii baahaya meel aan horay ganacsi uga jirin isla markaana ay faa'iidooyin badan ku qabaan dawladda iyo dadka reer Koonfur Afrika goobaha ay ku ganacsadaan Soomaalida waxa ay ka dhiibaan lacag badan oo kira ah waxa ayna lacagtaasi dib ugu laabataa dadka iyo dawladda Koonfur Afrika ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay shaqooyin u abuureen dad badan oo u dhashay dalkani Koonfur Afrika kuwa oo aan shaqo haysan ka hor inta ay Soomaalidu soo gaarin dalkani Koonfur Afrika intaan ku guda jiray indhaynta ayaan la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed waxaana weydiiyay kobaca laga dareemayo xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika hadda waxay weydiisay ganacsiga Soomaalida ee ku sii baahaya xaafadda Belvel ay ka deganaan jirtay Belvel halka under bridge loo yaqaan buundada hoosteeda intaas Soomaalidu ku ekaan jireen marka dad yar oo halka inta dukaamo ka furtay ganacsiga halkaas ay Soomaalidu ugu horeysay ka bilaabay maanta kulay wajida ama faa'iidaha ku qaban ama yeeso ku qabay laakiin waa soo fiday ilaa ka gees bay sii socotaa sida muddo kulay danta waxa weeyaan dadku waxan bay ku qabaan noloshooda ku dabartaan kirooyinka iskaga bixiyaan dadkoodii wax bay oga diraan dawladda South Africa iyo wadanka dadka South African-kana dan weyn bay ku qabaan runta ganacsigu oo sii baaha waxaan ognahay sanadka hor bilfil ganacsigeeda waxa ay iska koobnay wax yar oo ahayd dukaankiisu iska yaray maanta alxamdulillah koona waxa waa ganacsigu u xiray waxaan arkaynaa in maalin ka dambeysay uu sii fidaayo oo geeska sii gaarayo labaas robot masaajidka robot ugu dhexeeya marka hore haddana robot kale la talaabay robot kale si talaabaya ma sha Allah waa ilaahay mahadis waxa marka dhinaca kale markii la eego dawladda waxay cabasho badan ka muujiyaan in jidadkii ay inta badan baabuurtii dhigtaan dadka ganacsatada ah dhibaato badan ay dawladda arrimahaas ku qabtay xiriir badan iyo mashquul arrimahaas ayagu maxaa ka jirta والله تاس أنا قلبا ممكن أقابل هاي عبشة الدولة دو وجرتها واسع لكن أيضا وحواي لأن إذا فائدة قبطة أو فائدة وحيد قبطة ده كان عشورة كقادة لكن كو كلام مركب أساس ملوت جرنا بيابل ما أنت نود أركتانه وحواي والوك سرتمع يعني ده كمشين كقادة وحواي وحيدة يعني أنا قادر أنا بنت أنا قادر أوصل سرتمع تاسنا وحاجة بلاش كوكو بدنا dawladda Koonfur Afrika ayaa dhawaan soo saartay sharci xadeynaya ganacsatada iyadoona sheegtay in dadka aan haysan sharciga dalku jooga aysan ganacsi ka sameyn karin dalkani Koonfur Afrika inkastoo baarlamaanka uusan arrintaasi wali ansixinin Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town